Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow Himilo High School. Maanta waxaan rabaa su'aal ardaydu ay soo weydiiyeen inaan ka jawaabo oo ah ustaadu taleefankayga ma ka maamuli karaa kombiyuutarkayga anigoo joogo meel aan dhoweyn ama ka maqan ba xafiiskayga shaqo. Haa, waad ka maamuli kartaa. Waliba waxaa intaas sii dheer xogta kombiyuutarka ku jirto waa shaqaysiin kartaa haddii aad wadatid iPhone ama Android nooca aad doontid wada. Maanta waxaan ku bari doonaa farsamada aad ku maamuli kartid. Ku soo dhawow ashirkan. Ugu horeyn, haddii aad wadatid iPhone waxaa soo furaysaa App Store, haddii aad wadatid Androidna waxaa soo furaysaa Play Store. Kadibna waxaad ku qoraysaa TeamViewer ku qoraysaa. Markaas saas ugu qortid, okay, hadda uu soo baxay. Hadda waa Androidki waxa aan ku qornay. iPhone-kana aan sidoo kale ku qorno qaybta App Store-ka. TeamViewer. Okay, labadooda markii uu saan kuugu soo baxo, aniga hore ayaa u soo install garaystay, adiguna hadda soo install garayso. TeamViewer adiguna hadda soo install garayso. Okay, maadaama taleefanadii aan ka soo install garaystay aan tago kombiyuutarka, waxaad tagaysaa Google Chrome kadibna waxaad ku qoraysaa teamviewer.com. qaybta sare ee wax lagu qoro ayaad waxa ku qoraysaa teamviewer.com. markaas soo qortid searching ayaad u diraysaa, kadibna waxaad ku dhufanaysaa halkaas protectiga waxaana ka dooranaysaa TeamViewer. Okay, wax yar kor ayaad u soconaysaa. waxay kor u soco meesha ay kugu qoran tahay buy now korkeeda waxaa ku jirta download. halkaas ayaad furaysaa buy now meesha kugu qoran tahay korkeeda waxaad ku aadan download ayaan ku dhufanaynaa. waad aragtaa sida filay. Okay, sidoo kale wuxuu ku leeyahay kombiyuutarka aad rabtid inaad appkan ku isticmaashid ma Windows mise waa iPhone OS. aniga hadda waxaan rabaa inaan ku isticmaalo Windows ayaan dooranayaa. adiguna haddaad ku isticmaalaysid iPhone iyo Windows appkan labadaba waa ku isticmaali kartaa. marka aniga Windows ayaan hadda dooranaa oo sababta kombiyuutarka ku isticmaalayo waa Windows. hoos ayaan u soconaa si aan u soo install garaysto appka. halkan ay ku qoran tahay download TeamViewer ayaan click siinaa. sidaad u jeedidba hadda wuxuu isku diyaarinayaa inuu hawshii bilaabo. Okay, hadda appka uu soo degay waa kana desktop-ka uu saaran yahay. waxaan rabaa marka appka inaan install garaysiiyo oo shaqaysiiyo. Okay, ugu horeyn appka double click ah siinaysaa, asagaad furaysaa, kadibna waxaad leedahay installation, kadibna accept ama finish target no oo yiraahdo. wuxuu yiri company-ga dooro. waxaan dooranaa personal sababtoo ah company-yaashan kale waa kuwa lacag. company-ga dhexe personal ku qoran tahay dooro. Okay, markaan appka wuxuu bilaabayaa inuu soo install gareeyo oo process gareeyo. Okay, markuu process gareeyo qaybtaas shortcut-ka oo soo gudbiyay ayaad furaysaa. haddana qaybta shortcut-ka appka uu qaybso waa u jeedaa original iyo shortcut iska dhiga. markaad saan u furtid waxyaabahan hore waxaan iska leedahay nagastiya leedahay. waxyaabahan hore nagastiya iska wareejinaysaa. Okay, meesha wuxuu ku yiraahday password samee. passwordki aad samaynaysaa. sidoo kale wuxuu ku yiraahday kombiyuutarkaaga samee. aniga waxaa ku qortay Ahmed BC passwordkan idin sheegi ma idin la wadaagi ma passwordkayga. xasuusnaaw markasta haddii aadan passwordka adkayn ma uu ka yeeri doono. u jeedaa aniga hadda passwordkayga mid fudud ka dhigay oo uga diiday. wuxuu leeyahay symbols iyo numbers iyo names intaba isku dar. Okay, waan ku darayaa marka waa adkayna. halkan waxaa ka dooranaa create hadda uu ii doorantaaba nagastiyaas kale. halkan aniga marka hore waxaa gelinaa emailkayga iyo passwordkayga. naamka kombiyuutarka ama PC-ga hore u soo histay emailkayga gelinaa, kadibna passwordka ayaa gelinaa. ila fiirso hadda passwordkayga waxaan ka dhigaa mid fudud inuu uga aqbalo iyo in kale. Okay, maxaad u jeedaa waa laga diiday passwordka. waxaa ku daraa symbols marka ku daraa ama calaamado sida u taqaanid. 2 calaamad 3 calaamad waxba ku daraa. Okay, bal markaan aan wada aragno. maxaad u jeedaa markaan wuu uga yeelay waa iska sugaa, kadibna finish ayaa iska leeyahay. halkan hadda waxaa uga jeedaa in la siiyay ID iyo password. Okay, ku calaameeyo. maxaad halkan uga jeedaa intaas calaamadaysa? waxaa uga jeedaa your ID iyo password. si fiican u fahantaa filan. markaan waxaa tagaa taleefanadii ama Android ha ahaado ama iPhone ha ahaado
iPhone hadduu yahay app store waa, haddii Android uu yahayna waa Play Store. Okay, bal markaan aad tago taleefanka iPhone waxaa halkan la yiraahday waxaad gelisaa ID-ga saaxiibka. waxaad gelisaa ID-ga saaxiibka waa computerka ogow ID-ga saaxiibka. Okay, ID-ga markaa gelsho kadib waxaa leeyahay remote control ku dhufana. waxay iska dulqaata xogaa culays yar ayaa iska jiro oo dhanka recording-ka markaa ka dulqaata markaa bas u gelsho ID-ga markaa u gelsho remote control ayaa leeyahay. isla markaa waxaa la weydiin doonaa password oo xaqiiqi ah leeyahay in aad adiga tahay qofka rabo inuu controlo computerkan. Okay, password-ka ayaan gelinaa. xasuusnaa markasta password-ka waa inuu 3 waxba isla socdaan, magac, number iyo calaamado waa in isla socdaan. sababtoo ah password-ka hadhow in la hackereeyo ama la koobiyeeyo ma sahlanaanayso markii qofka ay isla socdaan magac, number iyo symbol intaba. Okay, hadda waxaad u jeedaa iPhone-kaygii wuxuu ku xirmay computerka continuous ilaa continue meesha ka maamulayo la tusay kadibna waxaad leeyahay continue. waxaad u jeedaa waxyaabaha computerkayga dhexdiisa ku jiro dhan halkan uga jeedaa. halkan waa iPhone-ka. iminkana aan wada aragno Android-ka oo ujeeda calculator waa tagay aad u shaqeynaa. Okay, Android-ka aad tagno sidoo kale asna waxaad gelinaysaa ID-gaadi iyo waliba password-kaagi. markaasna waxaad awood u yeelan doontaa asagana inaad ku xirto oo sidoo kale aad uga maamulto. waxaan filayaa inaad fahantay. fadlan la soo deg application-kan. xasuusnaaw application-kan adigoo joogo meel aan dhaweyn magaalo adigoo joogo ayaad maamuli kartaa computerkaaga. hadda waxaad u jeedaa taleefankayga iyo computerkayga way isku xirmeen. waxaan filayaa inaad fahantay kana faa'iideysan doontay. ku soo biir oo ka mid noqo Himilo High School. kaaga mahadcelinaynaa daawashadaada quruxda badan.